muxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam inooga reebay inaynu u seexano dhinaca caloosha oo uu inoogana digay su'aashaasi jawaabteeda oo faahfaahsan ayaynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa waxaynu faahfaahin doonaa sababta uu nabigu inooga digay iyo dhibaatooyinka ay leedahay iyo waliba waxyaabaha ay dhakhaatiirtu ka yiraahdeen arrinkaasi wa salaamantihiin daawadayaasha ku xiran janalka dadweynaha kuna soo dhawaada mawduuceena maanta hurdadu waa mid ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn ee uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagu manaystay kuwaasi oo la tirin karin lana soo koobi karin faa'iidooyinka ugu waaweyn ee hurdadu leedahay waxa ka mid ah jirka ayaa ku xasila kagana nasta tacabka iyo daalka si uu insaanku u soo tooso iyada oo ay soo laabatay firfircoonida iyo furfurnaantii waxa muhiim ah inuu qofku ka warhayo habka caafimaad ee uu seexanayo hurdadiisa si uusan qofku u seexan hurdo bilaa raaxo ah oo caafimaadkiisa waxyeelaysa waayo qofku waxa uu ka heli karayaa hurdada caafimaad faa'iidooyin iyo manaafacaad aad u ballaaran waayo waxa laga yaabaa inuu midkood seexdo muddo 10 saac balse uusan ka helin nasiimaha qadarkii looga baahnaa inuu hurdada ka helo sidoo kalena dareemin haba yaraatee wax firfircooni iyo furfurnaana marka hurdada ka soo kaco kadib waxa laga yaabaa inuu qofka kale seexdo muddo 5 saac oo kaliya balse faa'iidada ku jirta 5taasi saac ay noqoto cagsiga qofkii kale ee hurday 10 saac waayo farqiga u dhaxeeya ayaa waxa uu yahay kii hore waxa uu seexday hurdo bila caafimaad ah xagga kii dambe uu seexday hurdo ay ku dheehan tahay caafimaad iyo faa'iidooyin badan kama hadlayo cadadka saacadihii ay hurdeen balse waxaan ka hadlayaa habkii ay u jiifeen وسيحشدا لو سيحدو qaabkani ma aha hadiyii nabiga waxa ka soo aroortay sallallahu alayhi wasallam inuu inaga reebay in loo seexdo dhinaca caloosha iyadoo ay ahayd ficil celintiisu sallallahu alayhi wasallam markii uu arkay wiil hurta dhinaca xabadka waxa uu ku yiri in hadhihi taj'atun yabghaduhu Allah yani ilaahay ayaa u carooda habkaasi aad u hurdid ee dhinaca xabadka ah waxana xadiidkaasi soo saaray Abu Daawud iyo Ibn Maajah وسيحشدا dhinaca xabadku waa mid ka mid ah hababka ugu xunxun ee loo seexdo waayo waxa ay leedahay dhibaatooyin aad u badan in xabad loo seexdo waxa ay hoos u dhigi kartaa qoorada iyo naqaska oo qofka ku xirma laakiin waxa ay culays saaraysaa dhabarka iyo qoorta waana arrin horseedi karta hurdo xumo iyo raaxo la'aan xabad oo loo seexdo waxay saaraysaa culays dhabarka iyo xangulaha sababtoo ah qaybta dhexe ee jirka waa meesha ugu badan ee culayska jirka uu ku jiro cadaadis oo la saaro xangulaha waxay badinaysaa cadaadis soo fuula dhismayaasha kale ee jirka xangulaha waa tuubo ay ka buuxaan dareemayaal haddii cadaadis uu kor marana waxay sababi kartaa xanuun ka dhasha meelo badan oo jirka ka mid ah markii la sameeyay daraasado iyo baaritaano badan culimada waxbaadha waxay cadeeyeen in dhinaca caloosha oo loo seexdo ay keeni karto caafimaad darro baahsan taasi oo ahayd sababtii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inooga digay dhibaatooyinka ay cadeeyeen daraasadahaasi waxa ka mid ah neefsashada iyo soo bixidda naqaska oo cidhiidhi gasha marka uu qofku u hurdo dhinaca caloosha وسيحشدا uu qofku u seexdo dhinaca caloosha waxay sababtaa inuu qofkii hurdada ka waayo wax raaxo iyo deganaansho ah waxa uusan shaki ku jirin inay tahay hurdada oo uu jidhka iyo lafahu ka helo nafciga in ay tahay tii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam seexan jiray iyada oo uu imaamkii weynaa ibn al-qayyim rahimahullah uu yiri isaga oo sifaynaya qaabkii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam u seexan jiray kama uusan qaadan jirin hurdada in ka badan inta uu uga baahnaa naftiisana uma uusan diidi jirin inuu seexdo in ku filan yacni ma uusan ahayn qof aad u hurdo badan mana uusan ahayn qof ka mamnuuca qadarkii hurdo oo ay naftiisu uga baahnayd marka uu seexanayana waxa uu u seexan jiray dhinaca midig ilaahay ayuuna xusi jiray ilaa ay indhihiisu ka xidhmayaan isagoo isla markaana calooshiisa aana ka badin jirin cunto iyo cabitaan midna ugu dambeyn ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa raaca hadiyigii nabiga sallallahu alayhi wasallam aad baad ugu mahadsantiin daawashadiina haddii aad ku cusub tahay janalka dadweynaha ee YouTube fadlan subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyada dambe aynu soo gelin doono haddii alla qadaro oo nagu soo biir waxay inoo tahay tartar iyo dhiirigelin